aniga magacaygu Muxiidiin Cabdisamad waxaan doonayaa halkan inaan ka sharaxo cilmiyada ay ka mid ka yihiin sociology gaar ahaan guud ahaan loo yaqaano humanities therefore waxaan eegaynaa bal muhiimadda uu leeyahay cilmiga sociology and social anthropology la yiraahdo cilmigan haddaynu definitionkiisa eegno marka koobaad waxa weeye labada eray uu ka kooban yahay waa sociology iyo social anthropology tan koobaad sociology haddaynu eegno waxa weeye barashada society-ga ama bulshooyinka the history of societies oo si scientifically loo baranayo cilmiga sociology-gu ma aha cilmi aad u daaweyn waxa la yiraahdaa sociology-gu waxa uu leeyahay sida psychology-ga oo kale ayuu long past leeyahay laakiin short history ayuu leeyahay which means sociology-ga ama arrimaha bulshada muddo waa la soo weydiin jiray ilaa xilliyadii ilbaxnimada Greek-ga laakiin waxa uu sociology-ga in si scientifically loo barto uu bilaabmay waxa weeye qarnigii 20aad gudihiisii uun saadaradeed cilmiga sociology-ga definition-kiisa waxaanu nari waxa weeye the history of society waxyaabaha uu subject matter ahaan u soo qaato waxa kamid ah cultures religion social stratification dhaqanada bulshada diimaha waxyaabaha aan ka wado isbedelka bulshada the dynamics of society therefore arrimahaas oo dhan ayuu sociology-gu galaa haddaba waxa in badan dadku isweydiiyaan cilmiga sociology-ga halkee lagaga shaqeynaya ama sector-kee ayuu cilmiga sociology-gu taabanaya maadaama oo subject matter-ka sociology-gu ay very broad tahay mid aan cajalada ku duubi karno ama aynu halkan kaga hadli karno oo ku dhameystiri karno aanay ahayn waxyaabaha uu sociology-gu galo waxa kamid ah sector-rada uu galo sector-ka lawga sharciga oo kala shaqeeyo qolooyinka xeer ilaaliyayaasha sidoo kale caafimaadka ayuu sociology-gu galaa waxa uu sociology-gu galaa research-yada waxa uu sociology-gu galaa education-ka ama waxbarashada like admissions-ka student-ga waxyaabahaas oo kale waa la eegaa waxa uu sociology-gu galaa ogaanshaha bulshooyin cusub oo kale in la ogaado dhaqankeeda waxay u baahan tahay qof observer oo sociology oo culture-rada yaqaan in loo diro arrimahaas oo dhan ayuu sociology ka shaqeeyaa haddaba waxa iyadana isweydiin leh oo in badan dadku isweydiiyaan job ama shaqooyinka meelaha lagaga shaqeyn karo government-ga way ka bannaan tahay available opportunities baa jira in the government sector sidoo kale NGO-yada sector-keeda waa lagaga shaqeeyaa sociology-ga jaamacadaha waa lagaga shaqeeyaa meelaha ugu yaraad oo dhan karto waa lagaga shaqeeyaa lecture in sociology noqoto ayaa maanta fursad badan ka jirta dalka meelo badan oo saas oo kale ayaa sociology-gu uga baahan yahay in looga shaqeeyo su'aasha kale aan doonayna inaan ka jawaabno sociology-ga la xiriidha waxa weeye su'aasha ah maxaa sociology-ga master ahaan loo qaadan karaa haddii aan sociology-ga barto postgraduate-ka ama masterkayga maxaan diyaarin karaa cilmiyada aad diyaarin karto masterkaaga waxaa ka mid ah law political science waxaa kaloo ka mid ah inaad barato public health caafimaadka waa sababta arday badan oo public health ama caafimaadka dhigtay marka uu ugu jiro course-ga sociology-gu introduction to sociology waa lagu daraa mar kasta oo la dhiganayo public health sidoo kale cilmiyada kale aad baran karto markaad sociology-ga gasho environmental studies baa kamid ah global studies international relations cilmiyadaas oo dhan waxa weeyaan related to sociology haddaba erayba sociology-ga ee noo raacsanaa especially sida fildiyada jaamacadaha qaarkood lagaga dhigto oo aanu magaca sociology-gana markii hore raacinay oo ahaa sociology and social anthropology okay and marka what does the word anthropology mean here and erayga anthropology maxaan ka wadnaa isagana anthropology as you can understand from the origin of the word anthro iyo apology labada eray baa la isku geeyay erayga anthro waxa weeye bani aadamka ama dadka anthropo baa la yiraahdaa dadka marka laga hadlayo logina waa study therefore anthropology the study of mankind the study of human beings ama the study of people as you know and sida dooniba u dhig waa barashada bani aadamka taasoo la baranayo bani aadamka dhinacyo badan laga baranayo oo si kala baxbaa cilmiga anthropology-gu waxa laga bartaa bani aadamka dhaqankiisa taariikhdiisa noloshiisa mustaqbalkiisa biologically waa la bartaa dadka jir ahaantiisa dhinacyo badan baa bani aadamka laga bartaa marka dhinacan inagu gaarka imika xoog oo saarayno gaar marka cilmiga sociology-ga la xiriirinayo waxa weeye social anthropology the social aspect of human beings bani aadamka qaybtooda bulshaawnimo qaybtooda bulshada noloshooda kale iyo biologigooda taariikhdooda waxyaabaha ma eegayno laakiin nolosha bulsho ee bani aadamka ayaa si gaar ah loo doonayaa in looga hadlo marka la doonayo in la xiriiriyo cilmiga sociology-ga marka jaamacadaha qaarkood single bay u dhigtaan sociology-ga oo erayga sociology kaliya ay soo dhigaan halka ay jaamacadaha qaarkood like jaamacadaha Ethiopia oo kale badanka lagu qaato sociology and social anthropology
oo labada word la israaciyo saadraded cilmiga sociology oo muhiimad badan iyo baahi badan looga qabo dalka Soomaaliland isagana waxaanu eegaynaa sektarada Soomaaliland ka shaqeeyo dhan hadii aad eegto waxa la oran karaa 95% dadka Soomaaliland jooga cilmiga sociology uu ku yahay kama shaqeeyaan mana jiro wax graduate at least hadaad koobto waxa laga yaabaa 100 qof inaad ka soo helin oo graduate sociology dalka Soomaaliland jooga that means taas waxay sheegaysaa in fursad badan u bannaan tahay ardayda ku qalin jabisa cilmiga sociology-ga ana fursadaasna ay tahay mid aan wali la buuxinin loona haynin cid buuxisa ilaa ardayda jaamacadaha soo galiyo imika ku invite gareynayno mooyaane thank you very much indeed